Ma leedahay saaxiib aanan jeclayn inuu dad badan dhex joogo? Jecel inuu keligiis xaafadda iska joogo? Jecel inuu qoraal qoro halkii uu telefoonka cod ahaan ugu sheekayn lahaa? Jecel inuu qolkiisa mugdi ahaado xilliga maalinkii? Jecel hadduu dad meel u raacayo inuu hal ama labo saaxiib keliya raaco? Aanan jeclayn shaqooyinka saxmadda badan leh? Aanan jeclayn inuu ka hadlo meelaha fagaarayaasha ah? Aanan jeclayn inuu sheekayo balse jecel keliya inuu wax dhegaysto ama wax qoro? Saykolojigu wuxuu sheegay in dadkan waxaa sidaas ka dhigay tahay nooc dabeecad oo loo yaqaano introvert. Waa dabeecad gaar ah oo ay leeyihiin qiyaastii 40 ilaa 30% dadka adduunka joogo. Dad badan oo Soomaalidu ka mid tahay waxay dadkan u yaqaanaan waalida dhaqanto. Qof macbuus ah, qof xun iyo magacyo xun, balse taasi waa qalad. Dadkani waa dad wax kasta aad uga fikiro ka hor inta aysan sameynin. Ma ahan dad leh dabeecadaha furfuran sida Soomaalideenu u badan tahay. Dadka noocaan ahi waa dad daacadnimo badan. Waa dad aad u caqli badan. Waa dad aad u naxariis badan. Waa dad ixtiraama dadka kale, balse ayagu jecel inaysan dad badan dhex galin. Waana dad saaxiibtinimadooda tahay wax aanan la heli karinin. Waa dad ay aad u adag tahay inaad saaxiib la noqotid, balse haddaad saaxiib la noqotid weligaa uma xiisi doontid saaxiibo kaleeto. Haddaad leedahay saaxiib dabeecadaas leh, fadlan ixtiraam oo faham. Marka gurigiisa tagtid, albaabaha iyo daaqadaha ha ku wada furin, ha ku qaylinin telefoonkiisa iyo waxyaabaha u gaarka ah. Ixtiraam gaar ah si iraac ha iska oranin ee 5 bari ama asbuuc ka hor uu sheeg inaad rabtid inaa meel uu kuu raaco ama ay kuu raacdo. Haddaad leedahay saaxiib dabeecaddan leh, hoos kamentiga ugu yeer. Haddaad ka heshay muuqaalkan hanaga ilaawin subscribe iyo follow. Mahadsanid.